Asxaabey waa idin salaamay soo dhawaada ku soo dhawaada janaalkayga Fatax Abuukar. Maanta waxaan rabaa runtii inaan ka hadlo dhowr mowduuc ama dhowr arrin ku saabsan arrintii Somaliland iyo Israel. Sida aad wada ogtihiin waxaa hadlay madaxweynaha Soomaaliya asagoo wareysi siiyay TV-ga Al Jazeera qaybta Carabiga. madaxweynuhu wuxuu sheegay in Israel ay la sameysan karaan xiriir diblomaasiyadeed. taas ma xumo, aniga mar horaan sheegay oon iri Israel waa lala sameysan karaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku dhisan isfahan iyo is-ixtiraam, laakiin heerkaas waa ay soo dhaaftay. maanta waxay joogtaa Israel inay aqoonsatay Somaliland ayadoo xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. maxaa keenay marka arrintan? Horta arrintan waxaa keentay wax kale maaha. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka hor mar ka hadlay ururka Xamaas oo yiri waa urur maaragtay mataqaana u dagaalamaya xorriyaddooda oo dad muxuu ahaay wadaniyiin ah dhulkoodana difaacanayo. Israel horta taas ayaa keentay oo ku dhiiray maaragtay muxuu ahaay shidaal ku shubtay oo ku qasabtay inay Soomaaliya soo fargeliso Somaliland aqoonsato. sidoo kale Israel waxaa ku qasbay oo ayadana ku dhiirigeliyay inay mar kale Soomaaliya aqoonsato heshiiskii dhex maray Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. taasna waxay keentay runtii Ethiopia inay aragtay Israel in Soomaaliya wixii raba laga sameysan karo, anagana aan noqonay halaq mareen. taasina ay keentay marka inay aqoonsi siiso Somaliland. horta in saas loo fahmo ayaa muhiim ah Soomaaliya. Okay, intaas markaan ka soo tago diblomaasiyadeena runtii waxay ku dhisan tahay muufaysi, waxay ku dhisan tahay macaash doon, waxay ku dhisan tahay dan shakhsi. adduunkana laguma hogaamiyo diblomaasiyad iyo dal muufaysi, siyaasad arrimo dibadeed iyo diblomaasiyad ku dhisan muufaysi, macaash koox qaas ah iyo dan shakhsi ah. inta waxay kugu ridayaan haadaan ayay kaa tuurayaan, waxayna kugu ridayaan god mugdiya iyo bohol mugdiya runtii oo khatar ah inaad kasoo dhex baxdo oo adag tahay sidii aad uga badbaado ayay runtii kugu riday. waana midda maanta keentay Soomaaliya in ay fashil diblomaasiyad dhexda ka taagan tahay. Israelna ay aqoonsatay Somaliland, berina ay ku dhiiri karto ama ay ku cadaadi karto dowlado kale inay aqoonsadaan. gobolada Soomaaliya kuwa la midkaana ay dhihi karto mid kale aan aqoonsaday, mid kale aan aqoonsaday, mid kale aan aqoonsaday. waxba uma jirto taas. marka runtii dhibaato inteeda la eg oo weyn ayay taasi keentay. adduunka maanta la joogo diblomaasiyaddu kuma dhisno is-ixtiraam, is-qadarin. waxa la yiraahdo multilateralism ma jirto. siyaasadda ama diblomaasiyaddu waa laba nooc midkood, inay fundamental tahay, aas-aasi tahay oo diblomaasiyad adag oo ku dhisan isfahan, isqancin, wada shaqeyn iyo is-ixtiraam, iyo inay tahay diblomaasiyad transactional ah oo wax la kala goosanayo haddana markaas soo baxay ama dagaalo socdo proxy war ama interest la rabo in laga dhex faa'iideysto oo dowladihii ay ku kala goostaan danahooda. waxayna la mid tahay suuqa badeeco la keensaday oo hadba badeecadaadu sida u keensa sida ay maaragtay muxuu ahay qiimo u leedahay loo kala dafayo oo loo kala gadanayo. annaga haddaan Soomaali nahay diblomaasiyaddii maaragtay fundamentalka ahayd runtii ma hayno, oo maanta dal Soomaaliya ay la leedahay diblomaasiyad adag ama xiriir adag adduunka kama jiro. dal kasta waxaan ku saleynaa diblomaasiyadeeni macaash koox qaas ah iyo dana shakhsi aan ku saleynaa runtii. taasana waxay keentay dhibaato inteeda la eg Soomaaliya. waxaad ogtihiin dowladda maanta, dowladda Masar oo Soomaaliya u heelinayso inay shalay ka heelisay oo ay Ethiopian kala safatay. waxaad ogtihiin in shalay Ethiopia ay ka carartay oo ay Masar la safatay, in haddana Masar ay ka carartay dowladda oo Ethiopia dam ay furanaysay oo lagu xameynayo Masar ay dowladdu ka qayb gashay. waxaad ogtihiin dowladda inay xiriirka u jartay dowladda Qatar iyadoo ku carartay Imaaraadka.
waxaad ogtihiin inay sacuudi ka carartay imaaraad ku carartay waxaad ogtihiin inay imaaraadka ka carartay sacuudi carabi u carartay waxaad ogtihiin inay ka carartay Ethiopia ay Djibouti ay u carartay Eritrea waxaad ogtihiin Eritrea ka soo carartay Djibouti u soo carartay waxaad ogtihiin inay Kenya ka carartay Uganda u carartay waxaad ogtihiin inay Uganda ka carartay Tanzania u carartay marka diblomaasiyadeen waxay noqotay diblomaasiyad transactional ah oo aan anaga aan suuqa badeeca aan geysanayn laakiin ay ku dhisan tahay maxaan faa'iidaa maxaan ka helaa markaas dan shakhsi khaas ah waliba inta badan dana shakhsi xataa kama helno laakiin waxaan Soomaali u abuurnaa cadaawad iyo iska horkeen ay dawladdu markasta u abuurayso Soomaaliya maxaa yeelay maanta markaad tirahdid waxaan ka soo horjeestay imaaraadka waxaan ka soo horjeestay Qatar waxaan la saftay imaaraadka halkaas waxa ku dhuminay xulufo iyo saaxiibo aad lahayd ayaad ku dhuminay waxaadna abuuratay cadaawad iyo colaad diblomaasiyada abuuratay oo sokeey tabartaada waa inaad ogaataa dalka aad ka soo jeedo waa inaad ogaataa amnigaada waxa uu yahay waa inaad ogaataa siyaasadaadu iyo institutionska dawladeed inay yihiin kuwa hadda dhismaayo oo soo koraayo taasaana runtii keentay in Soomaaliya diblomaasiyadeedu ay noqoto mid aan fadhin tusaale la idin siinaa markii ay Yuhuuddu aqoonsadeen Somaliland waxaad ogtihiin Ethiopia inay ka aamustay oo ka gaabsatay waxaad ogtihiin Masar imaaraadka inuu ka aamusay oo ka gaabsaday maxay isticmaaleen dawladahaas waxay isticmaaleen waxa la yiraahdo strategic ambiguity oo in mugd la geliyo diblomaasiyadaada in mugd la geliyo ayadoo la gaabsanayo sababtu maxay tahay waxa la og yahay diblomaasiyadaada sida u shaqeyso iyo waxa ay tahay la og yahay iyo inaysan sal fadhiso aysan lahayn oo aad sida taxsigii maalinba meel aad ku boodeyso taasaa keenayso in runtii maalinba meel aad ku boodo dawladuhuna ay ka gaabsadaan waxaad ogtihiin shalay madaxweyne Xasan Sheikh asoo masaajidka ku khudbeynayo inuu Ethiopia ku tilmaamay cadawga ugu xun ee Soomaaliya haddana waxaad ogtihiin inuu Abiy Ahmed wacaayo oo leeyahay iisoo gurmo oo garab isii waa foolxumo iyo dhibaato inteeda la eg waayo waxaad ogtihiin hadda in dawladda ay ka safatay imaaraad oo ay kala safatay Sacuudi Carabiya iyo Yemen Soomaaliya marka siyaasadeedu waad ogtihiin xaalkeedu ma fiicno waa khatar hadda saasay tahay Sacuudi iyo Imaaraad waxay la safatay dawladdu Yemen waxayna ka safatay imaaraadkood ogtihiin ukumihiisa inay oolaan Soomaaliya saldhigyo oo ku leeyahay oo ku dhex miran yahay Soomaaliya khatarta amniga oo ku sameey karo iyo dhibaatada amniga oo u geysan karaan ee aad u ballaaran tahay oo boqolkiiba boqol ay tahay oo ka dhex sameey karo amni darro iyo dhibaato oo ku dhex sameey kara Soomaaliya waxaad ogtihiin imaaraadka saameynta oo ku leeyahay Suudaan iyo hubeynta oo hubeynayo ciidamada halkaas joogo ee mucaaradka waxaad ogtihiin saameynta oo ku leeyahay Somaliland iyo aqoonsigan Israa'iil ay siisay waxaad ogtihiin dhibaatada Soomaaliya gudaheeda oo ku hayo waxaad ogtihiin dhibaatada oo ku hayo Ethiopia waxaad ogtihiin dhibaatada regionka oo ku hayo Soomaaliya marka maanta halis weyn ay ku jirtaa ma taagno in dastuurka qodobo laga bedelo waxaa taagan badbaadintii qarannimada Soomaaliya dawladda Soomaaliya horaan ugu sheegeen oo ay war diblomaasiyadiina ku saleeya diblomaasiyad adag oo sal leh oo xiriir fiican oo qoto dheer dawlad kasta la leh xataa Yuhuudda ku jirtay xiriir fiican la yeesha oo danaha aad ka leedihiin ka fushta danahiina ay ka fushato laakiin si ixtiraam iyo iskaashi ku dhisan oo dhaqaalaha iyo amniga in iska kaashado iyo dhanka sirdoonka in la isweydaarsado waxyaabo badan oo laga faa'iideysan karaa jiro annagana u faa'iideysan karnaa ayagana u faa'iideysan karaan ayadoo markasta aan ku xadgudbeen danaheena madax banaanideena iyo jiritaankeena aan ku xadgudbeen laakiin Yuhuudda waxa u sahashay inay si dhow u aqoonsato Somaliland heshiiskii Muuse Biix Cabdi oo la galay Abiy Ahmed taasoo marka ka dhigtay Soomaaliya hilib jilcan oo gooska la saari karo annagana waxaan noqonay halaq mareena noqonay adduunka Soomaaliya waxay tiraahdaa Soomaalida ama buur noqo ama buur ku tiirsanaaw ama muxuu ahay dood libaax
ku duud libaax ku degdigiiso macnaha waxtaas camal ah oo duud libaax ku jiifo ama buur noqo ama buur ku tiirsanaaw annaga hadda Soomaali haddaan nahay buur ma lihin buurna ma ihin laakiin buur waa heli karnaa aan ku tiirsano waxaan noo buur Masar waxaan noo buur Turki waxaan noo buur Qatar waxaan noo markii regionka la joogo buur Djibouti oo aan ku tiirsan karno oo noo doodka libaaxa aan ku mataqaanaa dangigseenno intaas dowladda noo laakiin Soomaaliya ma u diyaarsantay hadda inay diblomaasiyadeeda ka dhigto mid toosan oo u diyaarsan inay hana qaado oo ay runtii hor u jihayso may aadan ugu xumahay aw karbaale oo ku mahadsan yahay waa danjiro fahansan diblomaasiyadda dhanka ka jirto iyo dabeesho dhankay u socoto u taagan badbaadada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay inuu yahay qofkii magacaabay inuu ahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asoo fahansan diblomaasiyaddu waxa ay tahay aadan ugu mahadcelinahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweyne waaye arag waa diblomaasi lagu gacdaa runtii haddaad ogtiin hadii kale waa ninkii ka ergey Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay ma aragtay hay Soomaaliya dhahay ka eriyo waaye markuu faraha la galay siyaasadda Soomaaliya persona non grata siiyay waa ninkii ku khasbay Farmaajo inuu keeno halkan qaramada midoobay iyo safaaradaha soo raro waa ninkii uu karbaale magacaabay ee arrintii badda aad ogtihiin xoog oo saaray iyo sida uu meerdhaliyay maanta marka haddii madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa ay magacaabi lahaayeen uu karbaalo siyaasadda ay ku shaqeeyaan ee muufaysiga iyo danaysiga shakhsiga ayuu ka shaqeey lahaa runtii taas waxay horseedi lahayd marka Soomaaliya inuu uu karbaalo khudbadda oo darad shalay oo jeediyay oo san jeedin ee asagoo ka dhex fiirinaya danaha xasan sheekh iyo kooxdiisa sida ay rabaan wax u dhigo laakiin waxa ilaahay mahadiisa inuu yahay uu karbaale diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeynaya wasaaradda qorsheynta arrimaha dibadda ergada qaramada midoobay muddo ahay fahansan diblomaasiyadda soo shaqeysay waxa ay tahay fahansan sida Soomaaliya loo difaaci karo galaangal u dhex yeeshay sida golaha ammaanka ee loo shukaansado oo loo khalqaasado sida cod looga dhex saarsado sida loo kacsho dareenkooda iyo xamaasadooda sida international ma aragtay loogu daaro ee shuruucda caalamka loo hordhigo aysan uga talaabi karin diblomaasi fahansan ee hordhigi karo ee kala dhigi kara sida boolbool u kala furi karo arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee waliba siyaasaddeena iyo arrimaha dibadda ee ku dhisneed muufaysiga iyo macaash doonka ka dhigi karo siyaasad arrimaha dibadda macno leh caalamka u tusi karo inuu yahay ayaa runtii aan ku badbaadnay laakiin wali khatartu waa jirtaa uu karbaale kaliya aan badbaadin karo codkii qaramada midoobay iyo Soomaaliya codkeedii waa mideeyay waana kugu difaacay laakiin haddii arrimaha dibadda siyaasaddeeda arrimaha dibadda aysan saxnayn oo aysan fadhin oo ay maalin badal ku boodayso khatarteeda leedahay khataraad ku jirtaa Israa'iil hadda waxaad ogtiin inay saldhigii ay wadato ay dhisanaysay oo ay dhisanayeen nidaamka difaaca ee la yiraahdo bankariska ee gantaalada runtii difaaco marka lagu soo tuuro laakiin waxaa khatar leh oo isweydiin mudan hadhow markii Israa'iil ay gantaal ka tuurto halkaas ay Xuutiyiinta ku tuurto markii Somaliland lagu soo tuuro ilaan yuhuud waxaan ognahay inay gantaalka inay gabaadkaas ay galayeen cid kale ay soo ogoleen xataa Somaliland ay dhawa aqoonsanayso oo ogoleen yaa u dar Somaliland maxaa u dan xagee dadka Somaliland gali doonaan ilaan waxaad ogtihiin markii Iran iyo Israa'iil ay gantaalada dhacayeen ajnabiga joogay ay kuwa sheeganayay inay yihiin yuhuudda inay ka ceerisay dhismayaashii ay u tala galeen gabaadka ee dheen qof aan yuhuud aan ahayn looma ogolo oo dadku calaamado ku kala saarayeen iyo slogans hal ku dhigay ay lahaayeen oo ay weydiinayeen iyo calaamado jirkooda ay ka fiirinayeen inay dadkan yihiin dadkii yuhuudda in kale markii aqoonsadaan inay ahayn oo ajnabi ku dhex nool oo ka dhex shaqeeyay ay yihiin oo arrimaha IT-ga iyo sirdoonka iyo maaragtay muxuu ahay dhaqaalaha kala shaqeynayeen ay dhaheen ka baxa dhismaha nafta yuhuudda ka qiimo badan tiin ay banaanka u saareen bari markay la soo weeraro Somaliland saas way dhihi doonaan waxay dhihi doonaan ka baxa hawada soo ka baxa difaaca banaanka isku dhaca inta yuhuudda loo ogol yahay dhismahan inay galaan oo difaacan oo badbaadiyo Somaliland marka ayadana khatar ay ku jirtaa oo gacmaheedii ku raasatay oo ay dhimbiladaba ku haysataa dawladda Soomaaliya hadalka madaxweyne xasan sheekh inuu dhaho yuhuudda ama Israa'iil xiriir diblomaasiyadeed la sameeysanayna ma ku qaldan yahay kuma qaldano waa ku saxsan yahay laakiin waqtigeedii lama joogo hadda waa la dhaaf madaxweynaha dhowr mar sheegay inuu la sameeysto xiriir diblomaasiyadeed laakiin
hadda inuu dhaho macno ma sameynayso waxaa macno sameynayo oo xiriir diblomaasiyadoo yuhuudda lala yeesho oo shaqey kara marka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya laga dhigo siyaasad macno leh ee ku dhisan dana wadaag ku dhisan ee ku dhisan ilaalinta jiritaanka madax banaanida iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed siyaasad arrimaha dibadda xasilan oo fadhiso oo leh marjac loo noqdo sal ku dhig leh ama base leh ay ka duusho waxa ay u socoto iyo meesha ay u socoto iyo hadafkeedu iyo waxa uu yahay in la og yahay wax laga filan karana la og yahay mowqifkeeduna cad yahay marka la yimaado dadka diblomaasiyiinta ama diblomaasiyiinta noo nagu matalo diblomaasiyadda safaaradaha jooga iyo howlwadeenada diblomaasiyiinta kale ka shaqeeya safaaradahana laga dhiga kaadiriin aqoon u leh xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda fahamsan sida loo galo diblomaasiyadda sida loo suuq geeyo sida danahaada loo fushto sida loo raadiyo oo galaanka caalamka loogu dhex samaysto ilaa intaas ay Soomaaliya ka sameynayso diblomaasiyaddu ma dhaqaaqayso xiriir Israa'iil loo soo bandhigay macno ma sameynayo laakiin Israa'iil waxay ku aqbalay markii aad diblomaasiyaddaada boorka ka jafto oo ka dhigto mid macno leh dadka arrimaha dibadda ku jooga iyo diblomaasiyadda ku jooga in wadaan kaadiriin aqoon u leh ee runtii magaca iyo maqaamka Soomaaliya meel fiican dhigi karo markaas Israa'iil waxay diyaar u tahay inay kula fadhiisato inay kula hadasho inay heshiis kula diblomaasiyadda ama xiriir diblomaasiyadda kula dhisato inay ilaaliso madax banaanidaada iyo danahaada aysan ku xadgudbin danaha ay ka leedahay iyo kuwa aad ka leedahay si dhow aad u kala faa'iidaan ayadoo ku dhisan tahay is-ixtiraam mutual respect ay ku dhisan tahay is-ixtiraam laba dhinac ah dana wadaag ay noqoto diplomacy foundation oo aysan noqon transactional diplomacy strategic ambiguity ama mudigan diplomaasiyad ee strategically kuwa xan daaban ay ka saarto meeshaas oo ay ogtaa wax ay ka rabto iyo wax aad ka rabto isan ku waxad gudbi karin adna aadan ku waxad gudbi karin danaha aad kala leedihiin aad isfushataan iskaashi dhanka amniga iyo ma aragtay dhaqaalaha iyo isu socodka waxaas dhan aad sameeysan kartaan maxaa yeelay Sacuudiga Israa'iil leh maanta safaarad ku leh oo xiriir diblomaasiyad la leh Turkiga la leh caalamka dhan la leh wax dhiba ma lahan inaad diblomaasiyad adag iyo xiriir adag oo ku dhisan iskaashi aad la samaysato because danaha jiro adduunka maanta interest based worldwide adduunka ku dhisan dana waay maanta cid dantaada ay ka helayso inaad xiriir la samaysato waa muhiim aad muhiim u tahay xukuumadda hadda joogto markii madaxweyne xasan oo soo noqdo xilka ku soo noqday ayaan codsi u dhiibay aniga oon iri war Israa'iil waxa loo baahan yahay inaan xiriir diblomaasiyad la sameysano oo safiir u magacaabano dawladdu waxaan ku iri xataa anaa diyaar u ah inaan noqdo safiirkaas ku matalayo Soomaaliya in aan rabo inaan ku matalo oo aan xiriir adag oo diblomaasiyad aan u sameeyo Yuhuudda iyo Soomaaliya kaasoo ku dhisan is-ixtiraam isqadarin iyo is-xushmeyn aysan marnaba ku xadgudbin danaheena iyo madax banaanideena annagana aadateeda ku xadgudbin laakiin aan ka noqono dhexdhexaad qadiyadda Falastiin golaha ammaanka marka la joogno codkeena aan muujino cidna aan u heebeysan Israa'iilna aan ku ixtiraamin laakiin sharciga caalamka anagoo ilaalinayno iyo xaqa ay leedahay Falastiin inaan difaacno ayaan soo bandhigay codsigaas u gudbiyay dawladda Soomaaliya nasiib darro codsigii ma aysan dhageysan dhagay ka fureysatay waa iska dhaftirtay wixii aan sheegay baagaas codsiga aan diray oo aysan ka jawaabin dawladda Soomaaliya ayaa maanta haysto fashilkeedii haysto maadaama ay ku fashilantay arintaas waa taas maanta Israa'iil ay aqoonsatay qayb ka mid ah Soomaaliya waa taas wasaaraheedii wali oo ka indha adag yahay aqoonsi sax aan siinay waa taas maanta wariyaasheedii iyo sirdoonkeedii Hargeysa ay dhex joogaan ay ku dabaal degayaan ku damaashaadayaan oo ma aragtay muxuu ahay ay slogankii ama hal ku dhigii lagu yaqaan markii ay Falastiin duqeeyeen iyo markii ay niyeysanayaan inay guula gaaraan oo national anthem-kooda ama heestooda calanka iyo qarankooda ay ku jirto oo muxuu ahay yasiid Israa'iili wax saas camal ay ku dhawaaqaan ma xasuusto hadda slogan ay leeyihiin slogan-kaasi ku dhawaaqayeen maanta Hargeysa markay joogeen ka dabaal degayeen sida hadda masawirkan aad ka aragtaan fiidiyogiisa saas oo ahay oo ay ku dabaal degayeen runtii taas markii waxay ku tusay already way ku dhex jirtaa Israa'iil Soomaaliya already saldhigeedu waa socdaa oo dhismaheedu meel fiican u maraa oo bankarkii nidaam difaaceedkii bankarka meel fiican u maraa dawlado kalena waa ay ku qalqaali kartaa inay soo galaan ay aqoonsadaan waliba ay dawladaha maamulada kale xataa dawlad ka dhidaan
puntland iyo somaliland iyo jubbaland iyo kulli iyo koonfur galbeed iyo hirshabelle iyo galmudug iyo banaadir ay ka dhigaan dowlado kala gogo'ay ayay 98% u dhow yihiin haddaysan hadda dhicin dowladda soomaaliya aysan shacabka soomaaliyeed aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo mucaaradka la fadhiisan aan laga shaqeyn badbaadada midnimada ummadda soomaaliyeed somaliland walaalaheena wadahadal lala furin dhab ah dowladda qatarna aysan ka noqon dhexdhexaadiye iyo garwadeyn wadahadalkaas dowladda soomaaliyana ay tanaasul la imaan badan iyo isqancin oo ay dhankeeda noqon cidda tanaasulka badan aysan noqon ay noqoto oo tanaasul badan ay samayso taas waxay keeni kartaa marka in la isfahmo oo heshiis iyo isfahan laga gaaro arrintaas waxayna sahli kartaa in xiriir diblomaasiyadeed lala dhiso Israa'iil lala dhiso ayay samay kartaa weli dowladdu waa u sheegay codsigaas haddana halkaana mar labaad iyo mar saddexaad uga diraa dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay u dirto wafdi heer sare inay u dirto Israa'iil inay u dirto u baahan tahay maanta la joogo inay wafdi Israa'iil u dirto u baahan tahay kala xaajoodo arrintan ku qanciyo inay wada hadalka timaado ayada iyo Somaliland ay Dooxa la isku yimaado halkaas lagu wada hadlo Soomaaliyana ay la macaamili karto Israa'iil danaha diblomaasiyadeed ay leedahay iyo kuwa ay ka leedahay kala fushin karaan diblomaasiyad ku dhisan isfahan ay ka wada shaqeyn karaan cidii ku xadgudubto madax banaanida wadankaas ama arrimaha diblomaasiyadda ku xadgudubto iyo isfahankaas xandaanka diblomaasiyadda ka baxdo golaha ammaanka in laga dacweeyo oo la isugu tago ayaa dhigayo sharciyo dhigaya jiro axdiga qaramada midoobay ku jira Soomaaliya way sameey kartaa weli waa u furanta optionka Soomaaliya inay wafdi u dirsato Israa'iil oo qayb galo wada hadalkaas anoo Cabdi Fataax ayaa waxaan ogolahay inaan dowladda Soomaaliya wafdigii ay diri lahayd kamid noqdo oo aan Israa'iil aan tagno Jerusalem oo aan la fariisano ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee aan ku qancino inuu wada hadallada ka dhacayo Dooxa ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland u soo dirsado wafdi oo qayb galo mowqifkiisana oo bedelo oo dib u noqdo ayaan ka shaqeyn karnaa haddaan isu tagno waxaan ku qanci karnaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu public inta yimaado yiraahdo waxaan ka laabtay mar labaad heshiiskii iyo madax banaanidii aan baxshay waxaan diyaar u ahay inaan wada hadal galo aan ku galo Dooxa oo la galo Soomaaliya iyo Somaliland arrintooda Soomaaliya aan la sameeysto xiriir diblomaasiyadeed maadaama ay tahay dowladdii la aqoonsan yahay ee United Nations u diiwaan gashan madax banaanida iyo jiritaanka iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed aan ilaaliyo Israa'iil anaga ka dhameey karna arrintaas anaga ka shaqeyn karno haddii dowladda Soomaaliya ay wafdi macna leh diyaariso oo aan wafdigaas anagoo diyaarsan oo wafdi dowladda Soomaaliya ay dirto delegation aan tagno Jerusalem waxaan hubaa inaan ka shaqeyn karno inaan isu soo dhaweyno arrintan oo Soomaaliya iyo Somaliland Israa'iil meel xis ugu keeno oo ku qancino heshiis wada jir aan soo saarno golaha ammaankana oo taageero oo hoosta ka xariiqo hadda kadibna heshiiskaas lagu dhaqmo cidii ku xadgudubtana golaha ammaanka si wada jir hooyanaana mas'uul oo ma aragtay go'aan uga qaato taasaa runtii aan sameey karnaa waan ka shaqeyn karnaa madaxweyne xasan sheekh aan u diraa baaqaas hadduu dhageysanayo hadduu dhageeyo hadduu leeyahay oo wax maqlo oo leeyahay maanta jaanis haystaa madaxweynaha weli maandheedo haystaa oo ku diri karo wafdi uu diri karo Jerusalem madaxweynuhu yeeshan ka raacin taariikh xumo ha noqon madaxweynihii diblomaasiyadda ku ciyaaray ee ku daneystay diblomaasiyaddii ee ku macaashay ee ka dhigtay fura oo asiga wato oo qolkiisa ku furanayo oo marna xirinayo marna furanayo ha ka dhigin madaxweynuhu diblomaasiyadda taariikh xumo yeeshan ka raacin ka shaqeey maanta in la badbaadiyo Soomaaliya iyo Somaliland isku maadaan wada hadlaan ka shaqeey siyaasiyadda Soomaaliya in la heshiiso oo dadka Soomaaliyeed midnimo dhex dhigto ka shaqeey in Israa'iil iyo Soomaaliya ay xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan ka shaqeey oo aysan mar dambe ku xadgudbin madax banaanida iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ka shaqeey doorasho macna leh oo dadka Soomaaliyeed ay isla ogol yihiin oo diyaar ah waxaan ku sheegay madaxweynuhu oo 100% huwa dad ka shaqeyso isfahan in dhex dhigto Somaliland iyo Soomaaliya oo aad Israa'iil xiriir diblomaasiyadeed la samaysato oo aad siyaasiyiinta iyo mucaaradka cid ka aragtida duwan la fadhiisato heshiis macna leh la gaarto oo aad ka shaqeyso doorasho xor iyo xalaal ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin oo aad xiriir dhow la samaysato oo dowlad kasta caalamka xiriir diblomaasiyadeed adag aad la samaysato khaasatan Qatar Turkiga
muxuu ahay qatar iyo turkiga iyo jabuuti iyo masarna xiriir diblomaasiyadoo dhow oo difaac ku ah oo ay kuu noqdaan buur aad ku tiirsan tahay aad la samaysato, waxaan kuu hubaa inaad madaxweynuhu guul ka gaartay diblomaasiyaddii, inaad khilaafaadkii oo dhan xalisay, inaad tabashooyinkii oo dhan xalisay, inaad dalka waddo nabdoon ku waday, inaad maaragtay muxuu ahay guul ka gaartay wixii aad ku haminaysay adoo nadiif oo xor ah oo dadka Soomaaliyeedna ay kugu faraxsan yihiin, mucaarad iyo muxaafidna ay kugu faraxsan yihiin, dowladihii dariskana ay kugu faraxsan yihiin, qaramada midoobana aad arrinteedii meel saartay, Israa'iilna aad xiriir diblomaasiyad adag la samaysatay, arrimihii taagnaayoo dhanna aad xalisay, diblomaasiyaddina ay kugu adagtahay kuu fadhiso oo aadan walwal ka qabin in lagu dabamareeyo oo diblomaasiyad sal fadhiso aad haysato, ayaad kambeynkaadii geli kartaa, tartami kartaa, weliba aad ku guuleysan kartaa haddaad si sax kambeynkaas u gasho oo xoraho xalaale oo dhaqaalaha iyo imkaaniyaadka dowladda aad haysato ay noqon lahayd ciidanka iyo dhaqaalaha iyo maaragtay muxuu ahay hoteelada waxaasoo dhan aad dadka kula tartamayo ay noqdaan dad kula wadaago oo kula isticmaalo oo ay maaragtay si sax loo wada isticmaalo, laakiin aadan keligaa isticmaalin dhaqaalaha, aadan doorashada u isticmaalin ciidanka, aadan keligaa awood u isticmaalin oo ciddaa rabta aadan ku dulmin hoteelada iyo aadan dhin keligii xaflado ku dhiganaa oo aad dhexda dhigto talada dhaqaalaha iyo wax walbana aad dhexda dhigto oo aad fududeyso in tartan lagula galo. waxaan hubaa madaxweynuhu inaad ku guuleysan karto, guul weynna aad kasoo hoy karto, dadka Soomaaliyeedna ay kugu jeclaanayaan, macno weynna aad sameyn karto. hadda fashilka diblomaasiyad oo dhexda aad ka taagan tahay iyo diblomaasiyaddan marba meel ku boodka ah oo maanta markii khatar ay ku qabsatay sida hadda madax banaani Israa'iil ku dhawaaqday oo aad ku orday Jabuuti oo aad ku orday Turkiga oo aad naxsan tahay meel laga jiro aad fahansaneen oo khatar badan ay imaan karto haddaad waxaas hadda aan kuu sheego wanaaga aad samayso, haddii cid ku xadgudubta xataa madax banaanidaada adoo walwal qabin oon gurigaadii joogo oon waddankaadii caasimadaadii muqdisho ka bixin ayaad taleefon adeegsan kartaa oo aad madaxda caalamka taleefon kula hadli kartaa oo maaragtay muxuu ahay group soo geli kartaa oo maaragtay WhatsApp group soo keeni kartaa oo arrintaada ka hadli kartaa oo xafiiskaad adoo dhex fadhiyo United Nationska wasiirka arrimaha dibadda dirsata adigana halkaa live ka soo gasho ka hadli kartaa dhibka haysta Soomaaliya iyo garabka iyo gaashaanka ay ugu baahan tahay qaramada midoobay oo wax walba halkaa adoo joogo aad xali kartaa sida madaxda caalamka inaad ordo oo hadba walwasho oo hadba meel ku boodo uma baahnid. markaad maqashay laba dowlad isku dhacday inaad ku dhex dhacdo lama rabo madaxweynuhu, inaad xulafaysi dagaal iyo orod iyo daandaansi aan macno kuusoo kordhinayn oo aad dhanka dhaqaale adag ka helin oo aad dhan amni adag ka helin oo iskaashi military iyo mid diblomaasiyad adag ka helin oo proxy war ahoo dagaal dhinacyo badan u dhexeeyo khatar ahoo adiga dhib kugu keeni kara maahe oo dhib aad ka dhaxle maahe aad faa'iido ka dhaxleen. waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay marka madaxweynuhu inaad ka fiirsato oo taladeeda aad qaadato oo aad ka shaqeyso sidii wafdi aad ugu dir lahayd Jerusalem ugu dir lahayd ama Tel Aviv aad ugu dir lahayd, wafdigaasna aan aniga qayb ka noqdo oo aan ka shaqeyno anagoo matalayna dowladda Soomaaliya inaan ka shaqeyno isfahan diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya, Israa'iil iyo Somaliland dhexda ku jirto, qadarna aan ku dhexdhexaadino dhexdhexaadinta aan qadar ku sameyno wafdi Turki ahna oo soo diray mataqaanaa Rajab Tayyip Erdogan ay qayb ka noqdaan ay horjooga ka noqdaan wada hadalka ka dhacaya Dooxa ay la socdaan. inta haddaad samayso madaxweynuhu waxaan hubaa inaad guul ka gaari karto arrimahan socdo, diblomaasiyadduna ay saldhiganayso. haddaad diiddo oo iska dhextirto oo dhex xirto dhagahana aad furaysato waxaan hubaa 100% inta mandateekaada ka dhiman in khataro badan oo amniga dhici doonaan, in dowlado badan ay aqoonsan doonaan, in maamulo badan hadda Soomaaliya ay dowlad noqon doonaan ay go'i doonaan, in dalka Soomaaliya iska dhaaf doorashooyin la aaday oo amnigiisa faraha ka baxay oo gintaalada san uu hoobanayaan oo dalkii kala go'go'ay oo maanta laba qof oo Soomaaliyeed ama siyaasiyiin ama shacab isu imaan kara aysan jirin, dal Soomaaliya la dhihi jirana oo hawada ka baxay, UN-tana ama United Nations ay ku dhawaaqaan Soomaaliya dalkii la dhihi jiray inay ka tirtiraan ay dhahaan Soomaaliya waxay isu bedeshay dowlado inaan mid kasto iskeed u aqoonsano oo golaha ammaanka 5 veto powerka ay ka doodaan ay kulan degdeg isu yimaadaan ay dhahaan Soomaaliya waa baaba'day dowladda noqotay kaalaya aan aqoonsano oon taageerno oon ka doodno oon sidii aan dowlad kasta ula macaamil lahayn
iyo waxay u baahan tahay aan u sii lahayn aan kala shaqeyno ayaa imaan doonta madaxweynuhu adna aad noqon doonta adna waxaad noqon doontaa madaxweynihii inuu doorasho dalkan gaarsiiyo iska dhaafay Soomaaliya kala gooyay wadamo kala dhigay u sahlay in dowladda shisheeye ku dagaalaan in gantaalo ku soo dhacaan iyo hub aysan xamili karin oo dadka Soomaaliyeed gumaad adag runtii ku dhaco madaxweynuhu taasaa dhici doonto fashil diblomaasiyadeed waa khatar fashil diblomaasiyadeed waa khatar ra'iisul wasaare Xamse naftigiisa wuxuu ku dhacay fashil diblomaasiyadeed markuu ka hadlayay Xamaas waqti aan loo baahnayn in laga hadlo ka hadlay tabarta Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya tabarteeda kuma xisaabtamin isdhaha Israa'iil isku soo jeediyay waa kaas hadda maanta ay aqoonsatay ay saldhig dhisanayso shalay markaan aan sabab ku tukanaynaa waxay dhalisay in Itoobiyaanka soo galaan wadanka ayagoo 30,000 ah 30,000 oo qofna ku laayaan ku dhibaateeyaan kadibna ay ka dhasheen al-shabaab ay ka dhalatay oo ilaa maantana dowladdu ila tacaalay maanta waa ujeedaan Israa'iil ayaa ka dabaaldegayso Somaliland oo Hargeysa ku dabaaldegayso oo ku dhex tamashlaynayaan waa ogtihiin in qatar badan ay jiraan oo dhaar xoutiyiinta ka soo yeertay in Taliban ay dhaarteen in meelo kale ururo islaamiyiin ay ku jiraan ay dhaarteen Soomaaliyana loo biro tumanayo oo loo meediya soo feesanayo Soomaaliyana aysan haysan gantaal isaga difaacdo iyo nidaam difaaceed hawada aysan lahayn waan ognahay maanta marka baddaas joogo oo maraakiibta baddaas ilaaliyo oo India Oceanka haduu hal gantaal ku soo tuuro Soomaaliya maanta inta ka dhimanay iyo inta dawladdu dumayso iyo dhibaatada u geysanaan ognahay dowladda Soomaaliya aysan haysan hal gantaal ay uga jawaabto aysan haysan dowladda caawa ay ku kalsoon tahay 100% ay dhihi karto kaalay gantaal ay ugu dhuftay iyo jawaab oo difaacna aysan jirin oo runtii dowladihii oo dhan ay buraash xaar la marisay mid ay la safato iyo mid ay ka safato ay noqotay oo maalinba mid aan ku boodno oo maalinba mid aan ka laalaadsano oo maalin Masar ku orodno oo maalin Masar dhabarka xigno dharbaaxsho ku dhufano oo iyo Israa'iil oo Etoobiyaan u orodno oo maalin Imaaraadka u orodno oo maalin ka soo cararno Qatar u orodno oo maalin kale Turki u orodno oo maalin kale Djibouti u orodno oo maalin kale aan u orodno Eritrea saasay noqoto horta diblomaasiyadeeni haddaan wax laga bedelin oo sida xalku yahay maanta oo san diblomaasiyadda aan laga bedelin qatara iyo muuqato dalkan waxaan nahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dalkan u baratay wax u baratay ee u taagan badbaadada dalkan u taagan waxaan nahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dalkan wax u baratay ee u baratay diblomaasiyadda u baratay ee u baratay ammaanka caalamka ee u diyaarsan dalkeena qalaadka diblomaasiyadda dhacayo inaan sheegno amni darrada dhacayso iyo qataraha amniga noo imaan karo war adduunku waa isbedelay maanta adduun multilateralism iyo ma jirto wax la yiraahdo maanta markaad labada isqabsataan dalkii aad shalay cadow ku noqotay oo ma arkala safatay wuxuu isticmaalaa strategic ambiguity wax la yiraahdo codsiga aad dirsatay iyo tabashadaada waa ka aamusaa mugdi u gelina maanta waxaan adduunka ka jirto yaa jilcan oo la feentaa yaa jilcan oo lagu duulaa yaa lagu tuntaa yaan ka dhiganaa halaq mareen oo aan marnaa oo dhex marnaa danaheena ayaa maanta caalamka ku tartama haddii lagu arko marka inaad tahay halaq mareen inaad jilcan tahay inaad rooti biyo ku jira ka jilcan tahay cid kasta ku dhex mareen maanta waa ogtihiin Soomaaliyeed hadda waad ogtihiinoo hadda aqoonsiga yuhuudda aqoonsatay Somaliland qatara badanaa ka imaada dowlado badanaa maanta soo galay shalay waxay ahayd Israa'iil soo gasho aqoonsatay Imaaraadka soo galay Sacuudiga soo galay Qatar soo galayso Sacuudiga wuxuu arkay inuu Qatar ku jiro oo Imaaraad dowlado kale xishoo jiray xataa waa isku maanta waa isku dhaceen waxa kamid ah Imaaraad iyo Sacuudiga waa kala xishoo jireen laakiin Sacuudiga maanta waxay dareentay Qatarta Imaaraadka ay ku haysay dareentay maxaa yeelay Imaaraadka waxa saldhig ka dhisay Soomaaliland iyada waaye waxa yuhuudda keenay Soomaaliland waa iyada waaye Israa'iil marka Sacuudiga wuxuu arkay Qatarta Imaaraadka ay ku hayso ay ku wareegsan hadday noqon lahayd Suudaan hadday noqon lahayd Soomaaliya hadday noqon lahayd Somaliland hadday noqon lahayd guud ahaan regionka Qatarta ay ku hayso Sacuudiga marka wuxuu gartay inuu Qatar ku jiro inuu ka aamusana aysan ahayn oo istaago oo faraha la soo galo taasaa keentay inuu Sacuudiga faraha la soo galo maanta Qatar ku xigso doonto dowlado badan ku xigso doono kala xishoo jiray maanta soo gali doono warkii meel ku qoran hor diblomaasiyaddu waxay u baahan tahay faham
aragti dheer ay u baahan tahay, miisaan ay u baahan tahay, cabir ay leedahay lagu cabiro, xeyndaab ay leedahay laga talaabi karin, si looga falceliyo leedahay. marxalad kasto iyo xaalad kasto timaado diblomaasiyaddu waxay leedahay cabir la saaro iyo si loo cabiro iyo si miisaanka la saaray ma aragti maxaa loo qaado ee loo dhigo. uma baahno xaalad kasto timaado hal miisaan diblomaasiyad hal cabir inaad saarto looma baahno. marxalad kasta cabir ay leedahay. rijinka maanta aad joogto haddii colaad ka dhacdo cabir diblomaasiyad waa inuu kuu leeyahay saa ula falgeli lahayd iyo waxa aad ka dhigi lahayd. haddii dal shakhsi oo kuu soo weeraro madax bannaanidaada miisaanka aad saari lahayd diblomaasiyadda waa inay ku cabiran tahay. haddii wadamada kale kaa fog caalamka intiisa kale ama reer galbeedka dhexdooda dhibaato ay ka bilaabato miisaanka aad saari lahayd iyo sidii aad uga noqon lahayd dhexdhexaad adoon cidna colaadsan cidna soo dhawaysan ee aan lagu arkin in dal dhinac la safan aad noqoto dhexdhexaad ee neutral aad noqoto ayaa loo baahan yahay. marka diblomaasiyaddu igu soo orod maahan ciyaar ma gasho. waxay u baahan tahay miisaan adag in la saaro, cabir fadhiya in lagu fadhiisiyo, luqadda lagu jawaabaya in laga taxadiro, war muftiyeedka aad qoraysid hadallada kaa soo baxayo, ficiladaada, sida aad u hadlee, kulamada aad sameehay, cidda aad xiriir la sameehay, cidda aad xiriirka jarhe, waqtiga aad hadlaysid, sida aad u hadlaysid, miisaana kugu socdo. intaasoo dhan waa lagu qiimeynaa, iskaana kugu socdo. haddaadan ka baaraan degin diblomaasiyaddaada marka hore aadan shaandheen oo aadan kala hufin oo miisaanka iyo cabirka aad saaraysid aysan ku caddeen khataraad ku sugan tahay. waana midda Soomaaliya maanta keentay inaan khatar dhexda ka istaagno oo dalkeenu maanta uu noqdo baylax iyo halaq mareen. cid kasta ay saan iyo saan noo dhaafto oo gintaal laga tuuro gintaalna lagu soo tuuro. intaasaa noo dhiman wayna imaanaya haddaan hadda aanan isdaba qaban oo aan diblomaasiyaddan wax ka bedelin. khatarahaas aan sheegaa ii muuqdo intaysan imaanin. Soomaali waxaa loo baahay inay baraarugto, gacmaha isqabsato, midowdo sidii badbaadada dalkeeda uga shaqay lahayd, kala aragti duwanaanshaha meel isaga dhigo, loo midoobo dalkan badbaadadiisa, madax bannaanidiisa iyo jiritaankiisa iyo midnimadiisa. haddii laga rabo in la hogaamiyo oo siyaasiyiin loo noqdo iyo indho, haddii kala samaho qolo kasta calankeedii waa haysataa. hadda waa u taagan yahay, magacna waa leedahay, ciidan iyo dhulna waa haysataa, constitution iyo dastuurna waa leedahay. waxa ka dhiman waa baasaboor iyo aqoonsi iyo xuduudeeda xirto fiisa loo qaato. intaasna waa helay, waana la gaaray haddaan hadda wax laga qaban. maantay qabasho leedahay, maalin waxay gaaray sida tusbax furtay ay noqoto. tusbax haddoo furtana mirta u horeyso iyo mirta u dambeyso is waqtiga baxe ma celi kartid. ta u horeysana ma qaban kartid, tan dambeysana ma qaban kartid. waa israacday. intaasoo tusbaxaas isku keenhaayo, xarkahaas isku keenhaayo aysan go-in oo jiritaanka iyo dowladnimada aan haysano aysan sida tusbax u furan oo institutionskeena oo kala dahdan hadduu saa u kala raaraaca oosan kasii kala furfuran. waxaan u baahanaha maanta midnimo iyo badbaado inaan gacmaha isqabsano. haddaysan dhicin maaho waxa aan sheegayo oo halkan aan uga digayo oo dhan ayaa dhici doono. iga qor hadda buug iyo qalin qaado, qor waxa aan sheegay, fiiri wax dhacaya, fiiri haddii isbeddel aan la sameyn waxa aan kuu sheegay dhan qodobeyso, bal fiiri inay dhaceen in kale. haddii dhici waayaan mar dambe hay daawan, mar dambe hay dhegeysan. hadduu janaalkii xataa subscribe ku yahay hadda unsubscribe idhi hadhow. haddiise waxa aan sheegayo ay run noqdaan waxaad halkan kusoo waxaan kaa rabaa inaad halkan soo fadhiisato, inaad halkan kusoo qorto, inaad halkan kusoo qorto qaybta hoose commentiga waxa aan ka hadlay inay wax sax ahaayeen, digniinta aad baxshanay natiijadeeda maanta in la haayo, ama iyadoo lagu khasaaray ama iyadoo lagu faa'iiday. khayr caafimaad rajeyna. hadda janaalka ay ku cusubtiin subscribe saara, haddaa hore u saarteen waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bye bye.